wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska dawladda Puntland Marwe Anise Cabdulqaadir Xaaji Muumin oo gaartay magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn wasiiradii wafdiga hogaaminaysay ayaa soo dhaweynteeda waxa qayb ka ah maamulka gobolka ka degmada iyo boqolaal shacab ah oo iyagu kaga hortagay duleedka magaaladaasi wasiiradda ayaa safarka ay ku gaartay magaalada Buuhoodle waxa ay salka ku haysay guurgalida xaaladda iyo sidoo kale weeyaan wasiiradu safarkeedu oo qayb ka ahaa safaro maalmihii ugu dambeeyay ay ku mareysay qayb ka mid ah magaalooyinka Puntland faafahinta warkaasi waxa magaalada Buuhoodle inooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaaliq Cabdirasaaq Jaamac wasiirka wasaaradda horumarinta iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland Anise Cabdulqaadir Xaaji Muumin iyo wafdi ballaaran ay hogaaminayso ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn wafdiga wasiirku oo ay kamid ahaayeen agaasimaha waaxaha ay ka kooban tahay wasaaradda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga dawladda Puntland waxa magaalada Buuhoodle ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Cayn ee dawladda Puntland Maxamed Xasan Faarax taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolka Cayn saraakiil kale isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolka Cayn ururada bulshada iyo dadweyne kale kuwaas oo kaga hortagay meel qiyaastii 5 kiiloomitir u jirta magaalada Buuhoodle qaar kamid ah dadkii soo dhaweeyay ayaa ka hadlay goobta laga hortagay wasiirka waa maalin weyn waa maalin aan ku faraxsanahay waxa laale wixii haweenka loo qaban lahaa wasiiradda waa ka sugaynaa wixii kale caafna waa soo dhaweynaynaa anigoo ah caaqil yaasiin maxamed xasan chief caaqil waanu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hambaliyo wasiirka haweenka Puntland Anise waxaan wasiir ku soo dhawow Buuhoodle waxaan u maleynayaa in badan bad hadalka uu ka maqashay lama teegi karo iyo waa sidan waxaad tagtay gobolka Cayn gurigu waa gurigaagii wasiiradda iyo wafdiga la socotaba gacmo furan welcome to Buuhoodle waxaan kaloo kaga baxayaa hadalka in dhammaan reer Puntland meel kasta ay joogaan Buuhoodle gobol ka mid ah shaqooyin yar oo dadka dhagaha loogu riday baa jira waxay la tareer Buuhoodlena uu siiqaana xaqiiqada dil isu sheego wasiiradda iyo cidda la socota iyo cidda ka dambeysaba si waxaan ku soo dhaweynaa iyagoo gobolkoodii dhulkoodii deegaankoodii ay joogaan qalbi furan waxaan ku soo dhaweynaa dalkoodii iyo dadkoodii iyo guryahoodii ay yimaadeen Garowe ay ka timi iyo Buuhoodle ay timi waa isku mid waxna isma dheera waxaanu rajaynaynaa inaanu halka ka sii wada xidhno waxqabadkeeda inantu waa inan firfircoon oo kale waa ognahay laakiin annaga hadda ka hor nooma iman hadday waxaanu ka rajaynaynaa inay noo qabato waxay ka qabanaysa dalka kale inaanu soo dhaweyno wasiirka wasaaradda haweenka Dr. Anise iyo agaasimayaasha la socda si weyn baa loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle waxaan inta ku darsan lahaa soo dhaweyntii dadka hore dhameeyay anagu haddaan nahay gobolka Cayn waxaan horta hambaliyo u direynaa 1 August maalintii aasaaska Puntland oo ku beegnayd maalintii shalay waxaanu shacabweynaha Puntland leedahay maalin wanaagsan waxaan kaloo doonayaa halkan inaan hambaliyo gaar ah uga diro gobolka Mudug oo waxa la yiraahdo baryahan ay carqalad ku jirtay waxaanu u sheegaynaa gobolka Mudug oo ah gobolka kaliya ee nala mataansan gobolada Puntland inaanu hiil iyo hooba garab taaganahay inaanu ka soo horjeedno maamulka gacan ku rimiska ee laga dhisay Cadaado wasiirka ayaa ka mahadcelisay soo dhaweynta loo sameeyay iyo madaxda ka hortimi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo gobolka Cayn khaasatan magaalada Buuhoodle runtii siyaasadda dawladda Puntland ayaa ah in laamiga laga dago 9 gobol la wada booqdo wasiirada aniga dhigayga oo kale looga baahan yahay inay yimaadaan goboladii ilaa tuulo ilaa degmo ilaa magaalo ay gaaraan aniguna qasdigayga wuxuu ahaa inaan soo gaaro runtii meel dheer iyo meel dhow ma jirto gobolada Puntland oo dhan waa isku wada mid intaasi kadib ayaa wasiirka loo galbiyay magaalada Buuhoodle iyadoo kulan soo dhaweyn ah loogu qabtay aqalka odayaasha ee degmada Buuhoodle waxa halkaas ku soo dhaweeyay qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn sheegaysay waad arki doontaa baahida adigana warbixinta cusub la noqotana ay ku taalaa magaalo madaxdii iyo madaxdii adigoo si khayr leh u soo dhawow waxaad aragto baad ku warbixin doontaa gobolkan Cayn yimaada baad nasiib u yeelatay kulay waxaan taariikhda baal dahabna kaga qori doonaa insha Allah maadaama tay wasiirkii ugu horeeyay ee dawladda Cabdiweli Gaas ee gobolkan Cayn yimaada baal dahab lagu qorantay waliba aad tahay wasiir aad u muhiim ah wasiirka ugu dambeyntii wasiirka ayaa
kulanka ay odayaasha qaybaha kala duwan la yeelatay sheegtay in ay u kurgeli doonto xaalad nololeed ee ay ku taxalluqdo wasaaradda iyo guud ahaan bulshada gobolka Cayn aadka u daneynaya inaan ogaado arrimaha ka jira khaasatan haweenka iyo carruurta sida hadda laga dhawaajiyay agoomo badan baa jira xarumay u baahan yihiin caafimaadka wuu liitaa marka waxyaalo waxaa jira inaga ka wasaarad ahaan aanu doonayno inaan ogaano kasoo markaanu isbarano kala war qaadano wada fariisano intii dhalada la iska arki lahaa ama raadiyoga la iska dhageysan lahaa wanaagsan horta inaanu iska naqaana dadka oo jidka iska soo leexin karo marka ka wasaarad ahaan waxaan aad u daneynayaa waxa weeyaan habkii haweenka la isugu xiri lahaa caafimaadkooda iyo tayada waxbarashadooda halkay marayso ama midii carruurtooda ha noqotee toosnayd ama midii dadbaneyd ee iyagu ku kordhisanayeen tacliinta ha noqoto gaar ahaan waxaan kaloo aad u daneynayaa inaan ogaado dhaqaalihii maadaama wasaaradda ganacsigana ogaasimihii guud nagala socdo habkii dhaqaalaha loogu kobcin lahaa waxay hadda dumarka sameeyaan xagga dhaqaale kobcinta hadday beeraleyta hadday xoololeyta hadday ganacsato caadi tahay inaan ogaadana waan doonayaa midda kaleeto waxaan jeclahay oo kaleeto inaan ururiyo arrimihii kale khaasatan loo gudbin lahaa wasaaradaha kale oo dawladda Puntland aan la qaybsan doono qaybaheeda kala duwan ha noqoto horumarintii deegaanka ha noqoto biyihii ha noqdaan waxbarashadii caafimaadkii dhaqaale kobcintii waxaasoo idil waxaan jeclahay inaan ogaado hadduu Ilaahay yiraahdo wasiirkii ugu horeeyay ee ka socda wasaaradda haweenka ee dawladda Puntland oo lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle tan iyo markii la aasaasay wasaaradda haweenka ee dawladda Puntland Cabdi Khaalaq Cabdi Saaq Jaamac Cabdi Khaalaq Wadani TV-ga dawladda Puntland Buuhoodle